Ma jeceshahay waxyaabaha dabiiciga in aad isku dabiibto amaba isku daaweyso? Maanta waxaan ku wadaa dhowr cunto iyo mudaawaad laga helo antibiyootika. Daawo videoga bilow ilaa iyo dhammaad, siina share garay sida dad badan ee uga faa'iideystaan. Mahadsanid. Ugu horeyn, caawa waa Jimco aan badino ku salinta Nabiga sallallahu alayhi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. xasuusi ehelkaaga iyo asxaabtaada sida dad badan ay ugu saliyaan Nabiga sallallahu alayhi wasallam. adigana aad ajar ogeeshid addaalu cala alkhayri ka faacilihi. badiya caawo oo Jimco ah iyo berito oo dhan. alxamdulilah, mar walbo Allah subxaana wa tacaala ayaa mahad iska leh. بسم الله الفتاح العليم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلي أصحاب وإذن سلامي ميل والبو دوني ذكا جوكتيني حلو والبو إذن تابحا إذن رجينيا غير عافمات دمانتينا سو دواذا كسو دواذا قلبي فورنا ديان وقع سبتاي سو دوو كسو دوو قلبي فورنا داويل سبسكرايب نوصارينا فضان سبسكرايب تا نوصار جنباليل كنفورو سيد فيديو والبعسب uu kuugu soo dhaco asxaabta hore u joogta idinkana like iyo share hanaga iloobina. dhammaantiina waa mahadsantiin inaa idin dhowna marnaba kama daalay kamana caajisay man laa yashkuri naas laa yashkurillah. antibiyootika qof walba wuu yaqaanaa iyo sababta loo qaato antibiyootik. maanta waxaan ila wadaagayaa natural antibiyootik amaba antibiyootik oo dabiici ah, hadday tahay cunto iyo hadday tahay mudaawaad. geedka ugu horeeya oo laga helo antibiyootiga oo dalkan yaalo, waxaan isku dayay waxyaabaha qaarne waxyaabaha dalka laga heli karo inay ahaadaan. marka waa diinsiga qof walba wuu yaqaanaa. diinsigana antibiyootika waaye. antibiyootigiisana runtii aad iyo aad ayuu u fiican yahay. daawada xitaa asigaa ka fiican. qaab kulul iyo qaab qabowna waa u cabi kartaa. haddaa kuleel rabtid, qaadada ayaa wax yar kusoo qaaday kadibna biyo kuleela ku shubee, shaah camal ayaa u cabaysaa. haddii aad rabtidna qabow ahaanne dhalo intaa ku shubtid ayaa biyo ku shubee. mar walbo subaxdiina koob, habeenkiina koob ayaa ka cabaysaa. antibiyootika kaleeto waxaa waaye malabka subxaan allah. ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa ayuu ku sheegay in uu biniaadanka shifaa uu uga dhigay. marka sidoo kaleetane malabkane waxaa ku jiro maadada antibiyootikada. waxaa kaloo noogu xigo waxaa waaye saliida qumbaha ayadane antibiyootik ayaa ku jiro. bakteriya walbane way dishaa. qaabka aa u qaadanaysidna waxaa waaye qumbaha saliidiisa mid la cuno oo cuntada lagu karsado ayaa jirto. ayaa waxaa soo qaadan kartaa qaado yar, kadibna waa cabaysaa amaba waa laqaysaa. geedka kale noogu xigo waxaa waaye amaba antibiyootigada laga helo dacarta amaba aloverada. si dabiici ah ayaad u isticmaalaysaa. haddaa rabtid cabitaan ka dhigo, haddii wejigaagana nabro uu ku yaalana meesha nabarka oo keliya ayaa saaraysaa, isla markiina wuu ka caawinayaa. dacarta ayadana antibiyootika ayay leedahay. antibiyootika kaleeto waxaa waaye apple cider vinegar amaba khalka tufaaxa. waxyaabaha aan soo sheegaya dhan micnaheeda ma ahan inaad kulligooda hal mar wada isticmaalaysid. waxyaabo qaar leh ka isticmaalaysaa amaba hal shay ayaa ka isticmaalaysaa oo markaaseeti aad baroweynaysa. haddii midkaas kuu shaqeyn waay, markaas mid kaleeto ama dhowr waxyaabo ayaa jiro oo laysku daro. kuwaaseetina videoga dhammaadkiisa ku sheegayaa sida ay isugu darsanaysid. sidoo kaleeto huruuda amaba haruuda ayadana waa antibiyootiga dabiici ah. subxaan allah, inaba caadi maahan. sidoo kale faa'iidada dhan waan kasoo hadlay oo huruuda ayadana waa daawan kartiin janalka gudaha oga raadiya. sidoo kaleeto sanjabiisha ayadana antibiyootik ayay leedahay. ayadana sanjabiishana faa'iidadeeda oo dhan waan kasoo hadlay. caafimaadka qaab walba ee ugu fiican tahay, balse hadeertaan waxaan ka hadlay waxaa waaye waxyaabaha laga helayo antibiyootiga. marka sanjabiishana ayadana antibiyootik ayay leedahay. maxaa kaloo noo xigo waa limo bambeelmada ayadana antibiyootik ayay leedahay. intaanoo nimco ayaa ilaahay subxaana wa tacaala nagu maneystay. mar walba ha iloobin inaa ilaahay subxaana wa tacaala ku xamdisid kuna shukrisid
dheh mar walbo alxamdulilah. Sidoo kaleeto qarfaha wuxuu leeyahay antibiyootika. waxaa kaloo ku xigo waxyaabaha laga helo antibiyootika amaba loo isticmaali karo antibiyootik dabiici ah waa dhegayaraha, balse dhegayaraha in la iska badiyo ma fiicno oo wax yar oo keliya qaado. sidoo kaleeto rosemary asigane waa antibiyootika. waxaa ka karsan kartaa shaah ayaa ka karsan kartaa amaba dukaamada waxaa jiro asiga oo shaah ahaan ah ama caleenta ayaa soo gadanaysaa kadibna shaaha ka karsanaysa. maxaa kaloo inoogu xigo waa basal iyo tuun, antibiyootika dabiici ah. subxaanallah, inaba caadi maahan. toonta iyo basashabo, qaasatan toonta inta ugu badan waxaa sameyn kartaa intaa jirjirtid ayaa waxaa ku dari kartaa malab, kadibna subaxdii iyo habeenkii ayaa qaadan kartaa. sidoo kaleeto waxyaabaha isku darsan kartid waxaa kamid ah sida sanjabiisha, dhegayaraha, huruuda iyo qarfaha ayaad ka dhigan kartaa cabitaan ahaan amaba shaah ahaan oo markaas sidaaseti antibiyootika ku naqan karo. toonta ayadana kama maqno, lindhanaanta kama maqno, waxyaabo kale oo badan ayaa jiro. xitaa geed talaalkii Soomaali aan u isticmaali jirnay ayagana inta waa la casriyo asigoo saliida jirto, antibiyootik ahaan ayaa u isticmaali kartaa. intaas iyo inka badan ayaa jirto, balse aniga waxyaabaha ugu muhiimsan khaasatanne qof walbana heli karo, khaasatan dadka dalka joogo ay heli karaan ayaan isku dayay inaan soo xulo oo noo soo qaado. waa rajeynayaa videoga caawa hadduu idiin soo gaaro inaad ka heli doontiin kana faa-iideysan doontiin. haddii aa adiga ka faa-iiday kaligaaga ha isku ekeenin, walaalahaaga kaleetana u sheergaray sida ayagana oga faa-iideystaan. hana iloobina badinta ku salinta nabiga sallallahu calayhi wasalam. allahuma salli calaa sayidina muxamed wacalaa aali muxamed. haddii intaan nala soo gaartay daawado daacad ayaa tahay, jecel inuu wax un faa-iideysto haba yaraatee asxaabta carartayna ayaga ayay faa-iido la-aan ku dhacday. inta aan video lamid a ku kulmeynin waxaa idinka tegayaa nabad iyo jaceyl. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. sidaas iyo amaano allah.